munaasabadan laga xusayay maalinta biyaha adduunka ee ka qabsoontay magaalada Boorama waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta gobolka kuwa degmada iyo kuwa maamulka shirkadda adeega biyaha Awdal ee Shaba salaadiinta dhaqanka iyo waxgarad kale ayaan iyaguna meeshaasi ka maqnayn gudoomiyaha shirkadda Shaba Maxamed Nuur Faahiye ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyadda ay biyuhu nolosha aadamaha u leeyihiin sidoo kale maarayaha shirkadda Shaba Cabdiraxmaan Cigo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in isticmaalka biyaha ee magaalada Boorama uu yahay mid marba marka ka dambaysa kor u sii kacaya isuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee gobolka Awdal Maxamed Cumar Dhimbil iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaalo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dadaalka shirkadda adeega biyaha Shaba si kastaba munaasabada sanadkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa waqti xaaladda biyaha ee degmada Boorama iyo deegaanada kale ee guud ahaan gobolada Awdal iyo Salal ay tahay kaafiye kala dheeri oo baligi karaftireeyay oo aasay ilaha foorare ee buurta sow kasoo shumaya bacaadkoogii yaa naga aasay marka waxa weey imika dadiya dunyaba biyo la'aan iyo khatar loogu jira shaanku cudur ma laga qaaday duri kama baxo dadka hadee malakulmeedkuna u yimaadeen dhintay lagu sheegay biyaha ma u sabab yaa waa biyo qurmay baa ku jira sinidooyin baa ku go'ay haadadaa ku go'ay wax waliba way ku go'een biyo baan inda garanayno biyo laguma baqtay waa loo baqtay biyaha waa in la noo hagaajiyo hay'adaha u sheegtiin haddii balay la noo xirayo oo riig weyno waxaan ka codsanaynaa in balay la noo xiro ku dabada joogiyo ku docda joogaba biyaan il daranahay balaygi waa ka naga baabay nagaas waxtar wax dawladda iyo wax hay'adaha kale oo maanta aan waxtar ka haysano oo balayga noo qodayna ma jirto Abdullah Ali Yusuf on Cable TV magaalada Boorama.